duhur wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada warka duhur ee radio kulmiye qodobada maanta warkeena ku jirana waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland oo mar kale degmada Dooble kaga dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab kadib weerarkii Baarsangooni ciidamada Kenya oo gacanta ku dhigay hub iyo rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo kulamo ka wada magaalada Baydhabo ciidamada ammaanka oo dad ku xiray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Puntland oo gaadiid xamuula ku xayirtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland oo magacaabay guddiga maamulaya doorashada guddiga joogtada ah ee golaha maamulkaasi doorashada golaha wakiilada Somaliland oo muddo kordhin loo sameeyo qarax xoogan oo ka dhacay koonfurta caasimadda dalka Syria iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo booqasho ku tagay dalka Jad Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhammaystiran wadajir waxaa idinkugu waramaya duhurkan maxamed axmed tuur yare iyo anigoo xawluul cubayd warka waxaa soo saaray cali ibraahim cabdulaahi taariikhduna waa 20 bisha koowaad sanada 2019 madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa mar kale degmada Dooble waxa uu uga dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab kadib weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsangooni Yunus Durraan Cali ayaa faahfaahinaya warkan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa xaalad dagaal kaga dhawaaqay degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe ayaa sheegay in dagaal ka dhana al-shabaab uu ka bilowday Jubbooyinka dhawaana laga saari doono Jubbaland madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sheegay in al-shabaab ay dhamaatay waayihii ay ka talin jiray Jubbaland hadda wixii ka dambeeyana ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo iskaashanaya ay u diyaar garoobeen sidii al-shabaab looga saari lahaa Jubbada Dhexe iyo guud ahaan Jubbaland waxa uu sheegay madaxweynuhu in al-shabaabkii soo weeraray deegaanka Baarsangooni ay dharbaaxa adag ku dhufteen ciidamada isla markaana ay tuseen qaraarka ay leedahay guuldarrada iyo dhimashada sida uu hadalka u dhigay Axmed Madoobe ayaa sheegay in dagaalkii Baarsangooni looga adkaaday dagaalamayaasha shabaab isagoona shaaca ka qaaday in khasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in howlgallada ay bilaabanayaan ciidamaduna ay guuleysan doonaan isagoo siyaasiyiinta Soomaalida ku booriyay in dagaalka al-shabaab loo midoobo oo waqtiga siyaasadda la gelinayo lagu bixiyo xoreynta waddanka shalay ayay ahayd markii dagaalamayaasha shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsangooni ee gobolka Jubbada Hoose iyadoona dhinacyadii dagaalamay ay guulo kala sheegteen dagaalkaasi maamulka Jubbaland ayaa abaabul dagaal waxa uu ka wadaa deegaanka ka tirsan gobolada Jubbooyinka ciidamada Kenya ayaa gacanta waxay ku dhigeen hub iyo rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab Cabdullaahi Maxamed Cali warkan aynu faahfaahiyo booliska dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay 2 nin oo looga shakiyay inay xiriir leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab waqtigii la qabanayay raggan ayaa waxa ay ka soo laabanayeen dalka Kenya iyagoona doonayay inay u soo gudbaan dhanka Soomaaliya aadan xasan maxamed oo 22 sano jir ah iyo Ibraahim Cali Gooyo oo 19 sano jir ah ayaa booliska gacanta u soo galay kadib markii darawalkii u kaxeynayay gaarigii ay siteen uu geeyay saldhig booliis waxaana la shaacin magaca darawalkii raggan geeyay saldhigga booliska iyadoona magaciisa loo qariyay sabab amni awgeed aadan xasan maxamed iyo Ibraahim Cali Gooyo ayaa labadaba markoodii hore ka yimid deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubbada Hoose darawalkan oo magaciisa la shaacinin ayaa raggan markii hore waxa ay u sheegeen inuu geeyo deegaanka Xamey iyagoona haddana isbedelay oo ku yiri waxaad nageeysaa xagardheer waxa uu shaki ka galay raggan markii ay ku yiraahdeen waxaad ka fogaataa wadooyinka mashquulka ah waxaadna marsiisaa wadooyinka qardajeexa ah oo markii dambe ku qasabtay in darawalkii uu geeyo saldhig booliis baaritaano ay boolisku ku sameeyeen raggan ayaa waxa ay ku soo heleen bistoolado iyo rasaas ay siteen booliska dalka Kenya ayaa bariyahan wado baaritaano ay ku sameeyeen dadkii ku lug lahaa weerarkii ee qaar ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen hotelka Dusit D2 halkaas oo ay ku geeriyoodeen 22 ruux
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa saacadihii la soo dhaafay ay kulamo ku lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ku-xigeenkiisa koowaad iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulamo ka wada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa sidii loo dhisi lahaa xukuumad cusub oo lagu tashtay odayaasha ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. shalay ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa kulan ku yeeshay madaxweyne Laftagareen iyo gudoomiyaha golaha shacabka iyagoona la kulmay odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa dadka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu gudoomiyaha baarlamaanka ka dalbaday inay doorkooda ka qaataan dib u heshiisiinta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. dib u heshiisiinta iyo wada tashiga xubnaha cusub ee golaha wasiirada ayaa waxay qayb ka tahay sidii loo dhameyn lahaa tabashooyinka xilligan ay muujinayaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. maamulka Koonfur Galbeed ayaa wuxuu bilaabay dadaal ay doonayaan sidii ay u dhameyn lahaayeen tabashooyinka ay tabanayaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ay ka dhalatay rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo iyo xarigii Mukhtaar Rowa Mansuur. wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada ammaanku ay howlgal balaaran ka sameeyeen qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda. howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga loogana hortagi lahaa falalka ammaan darri ee mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Beledweyne. inta la ogyahay 10 ruux ayaa la sheegay in lagu soo qabqabtay howlgalkaas kuwaasoo lagu xiray saldhigga Beledweyne waxaana inta badan ciidamadu howlgallo xoogan ay ka sameeyeen gudaha iyo nawaaxiga magaaladaas. saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyay in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baadigoobayo dadka falalka amni darro ka geysta magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda. doorashada golaha wakiilada Somaliland ayaa lagu soo waramayaa in la doonayo in dib loo dhigo. aqalka golaha guurtida ayaa waxaa la filayaa inay ku dhawaaqaan muddo kordhintii saddexaad ee loo sameynayo golaha wakiilada Somaliland muddo 14 sano ahna golahaasi uu ka shaqeynayay magaalada Hargeysa. golaha ayaa waxaa la filayaa in muddo kordhintooda ay noqoto ilaa iyo muddo 6 bilood oo la sheegayo in dib loo dhigi doono dib u doorashadooda. dib u dhaca doorashada ayaa waxaa la tilmaamayaa in maalmihii dambe uu walaac ka abuuray gudaha Somaliland. xisbiyada siyaasadda ayaana muujiyay walaaca ay ka qabaan in mar kale dib ay u dhacdo doorashada golaha wakiilada Somaliland. xisbiyada walaaca muujiyay waxaa ka mid ah Wadani iyo Ucid waxaayna sheegeen in arrintaasi ay tahay dib u dhacan loo baahnayn. markana Puntland ayaa gaadiid xamuula ku xayirtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa magacaabay guddiga maamulaya doorashada gudiyada joogtada ee maamulkaas. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya warkan. wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso degmada Xarfo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka maamulka Puntland ay halkaasi ku sugan ay xayiraad ku soo rogeen gaadiid ka soo ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland kuwaasi oo bagaash kala duwan ay saaran yihiin iyagoo doonaya inay soo gaaraan deegaanada koonfurta iyo bartamaha dalkan. xubno ka tirsan guddiga gaadiidleyda oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada Xarfo ayaa sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ku xayirnaayeen degmada Xarfo ee gobolkaasi Mudug kadib markii lagu soo rogay canshuur xad dhaaf oo aysan xilligan bixin karin gaadiidleyda halkaasi ku sugan. gaadiidkan ayaa horay waxay u bixin jireen lacag gaaraysa $40 Mareykanka waxaana iminka loogu daray $20 oo wadarta guud ahaan lacagtaasi ay gaarayso $60 Mareykanka taasi oo gaadiidleydu ay sheegeen inay ku adag tahay xilligan in lacagtaasi ay bixiyaan. maamulka wasaaradda maaliyadda gobolka Mudug ayaa gaadiidleyda u sheegay in lacagtaasi lagu difaaci doono siday hadalka u dhigeen gobolka Sool oo inta badan ay ku dagaalamaan maamulada Puntland iyo Somaliland. dhanka kale gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed ayaa maanta magacaabay guddiga maamulaya doorashada gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka maamulka Puntland. guddigan oo ka kooban 3 xubnood ayaa gudoomiyaha waxa uu u magacaabay xildhibaan Muuse Xasan, xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab iyo Cali Axmed Saalax.
doorashada xubnaha guddiga joogtada ayaa la qaban doonaa maalinta berita iyadoo ay u dhici doonto qaab la mida doorashooyinkii dhowaan ka dhacay xarunta baarlamanka magaalada garowe. guddiga joogtada ayaa waxay ka koobnaan doonaan 10 mudane iyo 3 guddoomiye waxaana xulistooda lagu salaynaya gobolada Puntland. warka duhur ee radio kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxaa inoo soo socda wararkii dibadda oo aad mar dhow maqli doontaan. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa boqosho ku tagay dalka ku yaala Afrikada Dhexe ee Chad isagoona qorsheynaya inuu wax ka bedelo xiriirka uu la leeyahay wadamo badan oo Afrikaan ah. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa ku tilmaamay boqoshadiisa Chad inay tahay mid taariikhi ah uuna ku doonayo in xiriir wanaagsan uu la sameeyo wadamo badan oo muslimiin ah. Netanyahu boqoshadiisa Afrikada Dhexe ayaa waxa uu taageero ugu raadinayaa khilaafka kala dhaxeeya wadamada Iran iyo Falastiin. madaxweynaha Chad Idris Deby ayaa bishii November booqasho lama filaan waxa uu ku tagay magaalada Qudus. dalka Chad ayaa xiriirka waxa uu jaray Israa'iil sanadii 1972 iyadoo booqashada madaxweynaha Chad uu ku tagay Israa'iil ay noqotay tii ugu horeysay ee uu hogaamiye ka socda Afrikada Dhexe uu ku tago Israa'iil tan iyo sanadii 1972. ugu dambeyntiina sida lagu baahiyay TV-ga qaranka wadanka Suuriya qarax xoog leh ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta caasimadda dalka Syria ee Dimashq. ururada u dooda xuquuqda aadanaha sheedana kala socda xaaladda Syria ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in qaraxu uu ka dhacay xarun military oo ku taala caasimadda Dimashq. waxaa jira dhowr ruux oo qaraxa ku dhintay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen inkasta oo weli aan la carabaabi karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa. weli waxaan cadayn in qaraxu uu yahay mid dhulka lagu aasay iyo mid ismiidaamina iyadoona ay jirtay toogasho ka dambeysay qaraxa. qaraxyada ka dhaca dalka Syria ayaa waxaa ku dhintay boqolaal ruux tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada 8 sano jirsaday ee ka dhacay wadanka Suuriya. guud ahaan wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo doorkan radio kulmiye Muqdisho aad kala socoteen qiyaare waanageynta